madaxweynaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Cali Cabdi Maxamed Cali Shiino ayaa daafuray ciyaartii beach soccer-ka ciyaar xeebeedka. runtii waxaan ogeyn maalmahan inay socdeen horumar lagu horumarinayo aqoonta garsoorayaasha iyo macallimiinta beach soccer-ka ama ciyaar xeebeedka beach soccer oo runtii macallimiin badan ay ka faa'iideysteen iyo garsoorayaal badan ay ka faa'iideysteen macallimiinta ajaanibta ee u dhashay dalka Uganda. waxaan ogeyn in isbuuc ay qaadanayeen casharo iyo practice. gudoomiyaha beach soccer-ka ninka dhalinyarada ah Abshir Cabdi Abshir iyo xogeyntiisa Mahad Maxamed Xaaji oo runtii uu dhabar adeegay aad iyo aadna ugu istaagay in garoon ay leeyihiin ciyaaraha beach soccer-ka ciyaar xeebeedka laguna ciyaari karo ay ka sameeyeen dowladka magaalada Muqdisho. runtii macallimiinta garsoorayaasha shahaadooyinka la guddoonsiiyey ayaa maalintii laba koox ka socoto macallimiinta iyo koox ka socoto youtuberada oo legends ah oo ay aragiin ah. runtii ciyaar dhaaftay oo bacaadka runtii aad arkayso dhalinyarada cuslaatay still inay farsamadii iyo xeeladii ay sameynayaan laakiin xoogaa awood badan aysan jirin. ciyaarta waxaa karsoorayay macalinka casharada bixinayay dalka Uganda u dhashay iyo macallimiinta Soomaalida la tababaray oo runtii ilaa iyo 4 gabdhood caruurteen Soomaaliyeed iyo 4 wiil. runtii waa sharciyo iyo xeer ku cusub dalka Soomaaliya maxaa yeelay waa markii ugu horeysay la qabto ciyaarahan. sidaad arkaysaan qaabka loo ciyaarayo runtii xoogaa hataa in lagu wareeriyo taageerayaasha banaanka fadhin ama dadweynihii ay leeyihiin ciyaarahan weligeena ma arkin. waa sax waa markii ugu horeysay. wuxuu leeyahay xeeruu leeyahay nidaam wax walba waxay leeyihiin xeer iyo nidaam leh. marka waxaad dareemaysaa horumarada soconayo dalkan Soomaaliya kubadda cagta dalkeena Soomaaliya meel walba. dhalinyarada new generationka madaxweyne Cali Cabdi Maxamed Cali Shiino iyo dhammaan maamulkiisa hadaladiisii ahaa in kubadda cagta dalka Soomaaliya labada macallin oo martida ah ee lejanka saxaafadda iyo macallimiinta iyo garsoorkaba door wanaagsan. marka horeysa waxaan aad u faraxsanahay in ilaahay noo dhammaystira dhammaan qaybaha ka kooban tahay kubadda cagta. labadii sane marka aan joognay horey waxaan u qabanay women football, waxaan u qabanay women oo ah difriid iyo macallimiin bale, waxaan qabanay fuustarki haddana beach soccer-ki waaye. marka ilaahay maadiisa waaye. xilka marka ujeedooyinkii oo kala ahay dhammaan waa lagu guuleystay. xogayaha iyo tiimkiisana waxaan u mahadcelinaynaa shaqada badan oo ay qabtaan habeen iyo maalin iyadoo waktigii loogu talagalay ka badan shaqeeya. sidaan ognahay taas ayaan u gaaray in heerkaa la soo gaaro. marka aad iyo aad aan uga mahadcelinayaa shaqada ay ku qabteen. waxay u qabteen dalkoodii. waxaana muhiim ah in natiijo laga gaaro. waxaan rajeynaynaa in la yidhaahdo beach soccer waa ciyaar aad u wax badan. macallimiintana waxaa laga rabaa inay ay ku dadaalaan aqoonta kororsadaan. garsoorkana sidoo kale laga rabaa inuu gaaro. rifriigu wuxuu leeyahay international oo rifriiga jira beach soccer. macallimiinta maamusha waayo waxaad ogtiin. mar haddaan xeebtii weynada haysano aqoontii inaan haysano dadkiina ay joogaan inaan cayaarno kaliya laga dhima. sida xoguhu sheegana sanadka dambe hadii la yidhaahdo maadaama sakaafu hadda ay bilaabayso sanadka marka hore babaasa loo cayaarayo sanadka